shilal baabuur oo ka dhacay tuulada Xamaas oo u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac tiro badan. Shilkaasi baabuur ee ka dhacay tuuladaasi Xamaas ayaa waxa uu sababay dhimashada imika inta la hubo 5 qof iyo 3 qof oo dhaawac ah. Shilalkaasi gaariga ee ka dhacay tuulooyinka u dhaxeeya magaalada Berbera iyo Hargeysa ayaa waxay ahayd gaari Land Cruiser iyo gaari Sarufa oo ka kala yimid magaalada Hargeysa iyo gaari ka baxay magaalada Berbera. Shilkaasi ka dhacay tuulada Xamaas ayaa waxa ka warbixiyay qof ku dhawaa ehelada qaar ka mid ah dadkii baabuurtaasi saarnaa oo u waramayay telefishinka caalamiga ee Somsad waxaana ka mid ah hadaladiisii magacyadooda Cabdiraxmaan Jaamac Yaaqoob Aadan Saalax ina cawl dirir oo dhintay labada kalena ay dhaawac yihiin. sidoo kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee magaalada Berbera Dr. Cabdiraxiin Cabdilaahi Ducaale ayaa isaguna ka warramay sida ay u daweynayaan saddexdaasi qof ee soo gaaray dhaawac iyo waliba 5 qof ee meydka ah uu sheegay inay eheladii dadkaasi imika ka qaadanayaan cisbitaalka guud ee magaalada Berbera oo la soo gaarsiiyay waxaana ka mid ah hadaladiisii waxa cisbitaalka degmada saaxil soo gaaray 3 dhaawac iyo 2 qof oo dhimasho ah marka tobanka dadka soo gaaray waxa isku noqonayaan 5 qof waxaana la sheegay in goobtii shilkan ka dhacay ee Xamaas ay yeeleen 3 qof oo kala mid ah marka laga hadlayo rag iyo dumarna waxay noqonayaan 2 dumar iyo 3 rag intii soo gaaray dhaawacooda xaaladooda waxa weeye gabadha uun baa xaalad culus ah dhaawaceeda laakiin ninkii iyo labada nin ee kale dhaawacooda u saameeyay Mubaarak Nirig telefishinka caalamiga ee Somsad TV Berbera.